subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimo idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho qodobada ugu doorka roona waxaa kamid ah madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay casuumaad madaxweynaha Soomaaliya uu ka helay dhigiisa dalka Eritrea qaar kamid ah odayaasha beelaha deegaanada Galmudug ayaa ka soo horjeestay xildhibaanada cusub ee dhawaan lagu dhawaaqay maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa shaacisay sababta weli loo fulin lahayd kiiska Caaisha oo soo maray marxalado kala duwan mid ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa taageeray hanaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay maamul uga dhisayso deegaanada Galmudug madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa taliyaasha ciidamada ugu baaqay inay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab shacabka ku nool deegaanada Galmudug ayaa loogu baaqay inay taageeraan musharax ay wadato dawladda federaalka ee Soomaaliya wararka dibaddana waxaa ka mid ah Iiraan oo ay ku dhawaaqday in si aan ku talagal ahayn ay u soo rideen militariga Iiraan diyaarad ku burburtay Iiraan iyo sidoo kale suldaanka waddanka Cumaan oo geeriyooday subax wanaagsan ismaqal wanaagsan waxaad maqasheen qodobadii wararkeena subaxnimo ugu doorka roona waa subaxnimo sabtiya taariikhdu waa 11 bisha koobaad ee January 2020 warkii subaxnimo oo fidsan madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay casuumaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka uu ka helay dhigiisa dalka Eritrea sida uu faahfaahinta warkan ku dhameystiraya Cabdiraxmaan Maxamuud Cilmi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea waxaana halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha dhigiisa dalkaasi Siyaas Afwerki waxayna labada madaxweyne ee salaan sharaf ay ka qaateen cutubyo ka tirsan bambeyda dalkaasi madaxweyne Farmaajo casuumaad rasmi ah oo qaadanaysa muddo 2 cisho ah ku joogi doona magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea wuxuuna wada hadal uu la yeelan doonaa dhigiisa dalkaasi Siyaas Afwerki iyagoona labada dhinac ay ka wada hadli doonaan sidii loo dardargelin lahaa dhismaha hanaanka iskaashiga diblomaasiyadeed iyo dhan dhaqaale oo labada dal ka oo madaxda isku afgarteen bartamihii sanadkii soo dhaafnay ee 2018 labada madaxweyne oo kulan saacado socday ku qaatay madaxtooyada Asmara ayaa iska xog wareystay dadaalada wadajirka ah ee labada dal ay ku xoojinayaan xiriirkooda walaaltinimo iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee la xiriira xasiloonida amniga siyaasadeed iyo mid dhaqaale ee gobolka madaxweyne Siyaas Afwerki ayaa ugu mahadceliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdiga wehelinaya aqbalaadda martiqaadka u fidiyay isagoona tilmaamay in isdhaafsiga booqashooyinka heer madaxeed ee Soomaaliya ee Eritrea ay adkeysay kalsoonida iyo wada qabsiga labada dawladood madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu mahadceliyay dawladda shacabka dalka Eritrea soo dhaweynta diiran iyo martiqaadka heerka sare ay ku maamuuseen isagii wafdigiisa dawladaha Soomaaliya Itoobiya iyo Eritrea ayaa sanadii 2018 waxay saxiixdeen heshiis iskaashi iyadoona saddexda dal ay shaaciyeen inay iska kaashan doonaan dhinacyada amniga iyo horumarka waxaana jiray muddooyinkii sanadihii ugu dambeeyay booqashooyin oo saddexda madaxweyne ay ku kala tageen magaalooyinka Asmara iyo magaalada Muqdisho iyadoona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalintii shalay oo Jimco ahayd uu ka ciidamay magaalada Asmara ee dalkaas Eritrea waxayna booqashadiisa ay qaadan doontaa 2 maalin qaar ka mid ah odayaasha beelaha deegaanada Galmudug ayaa ka soo horjeestay xildhibaanada cusub ee dhawaan lagu dhawaaqay iyadoo maalintii shalay ahayd guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug ay ku dhawaaqeen liiska 83 xildhibaan ee Galmudug ayaa waxay sidoo kale guddigu ay sheegeen inay dhameystiri doonaan 6 xildhibaan ee ka harsan odayaasha waxaa jira dhaliilo ka imaanaya waxgaradka deegaanada Galmudug iyagoo odayaashu ay sheegeen in dawladda federaalka ay hareer martay hanaanka loo dhisi lahaa maamulka Galmudug odayaasha ayaa waxay sidoo kale sheegeen in dawladda federaalka ay faragelin ku hayso dhismaha maamulka Galmudug oo soo maray marxalado kala duwan waxayna sidoo kale tilmaameen in dawladda federaalka ay doonaydo in la doorto musharax ay wataan
odayaasha ayaa ra'iisul wasaaraha ku eedeeyay inuu baarlamankii uu soo xulay ay yihiin rag ay isku xulafay yihiin ama Villa Soomaaliya taageersan. diidmadan ka timid odayaasha ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu abaabul maamul sida uu ka wado magaalada Gaalkacyo waxaana halkaasi ku sugan siyaasiyiin iyo odayaal mucaaradsan nidaamka dowladda federaalka ay wax ku wado. mid ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa taageeray hanaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay maamul uga dhisayso deegaanada Galmudug dhinaca kalena shacabka ku nool deegaanada Galmudug ayaa lagu baaqay inay taageeraan musharaxa ay wataan dowladda federaalka. waxaynu hayaa Cabdicasiis Siciid Beereed. Cabdiraxmaan Daqare oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda Simbe ee Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in shacabka deegaanada Galmudug iyo sidoo kale siyaasiyiintooda iyo waxgaradkoodaba ay u midoobaan sidii loo dhisi lahaa deegaanada maamulka Galmudug maamul ay ku mideysan yihiin. waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Daqare in loo baahan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya lagu taageero hanaanka ay u doonayso inay ku dhisto maamulka Galmudug oo muddo ku siman 2 sano uu hareeyay khilaaf siyaasadeed oo aan dhamaad lahayn ka oo ilaa haatan hortaagan dhismaha maamulka Galmudug hase ahaatee waayadii u dambeysay xal laga gaaray kala aragti duwanaanshiyo u dhaxeeyay xubnaha maamulka Galmudug iyo sidoo kale beelaha deegaanada maamulka Galmudug. Cabdiraxmaan Daqare waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya haatan ay shaqo wanaagsan ka wado deegaanada maamulka Galmudug isla markaana loo baahan yahay in la garab istaago shaqadaasi isla markaana ay taageeraan siyaasiyiinta iyo sidoo kale xubnaha xildoonka ah ee deegaanada maamulka Galmudug doonaya inay xilka qabtaan. waa in baarlamaan jiro madaxweynaha xukuumad la jirto dowlado hoose jiraan garsoor jiro check and balance nidaamka mataqaanaa muxuu ahaye fiican ee caadiga marka waxaan rajaynaaba waxay tahay mar haddii wakiiladii shacbiga la sameeyey shacbiga asigaa dowlada wakiiladiisu adeegsadaa talabo kasta uu qaadayo xukuumadda iyo baarlamaanka iyo garsoorka iyo dowladaha hoose runtii waxaan filaynaba waxay tahay maadaama dadaal badan lasoo galay oo dadka reer Galmudug u dhabar adeegeen nabadda iyo wadajirka oo waxaa dowladda si jiid ka wahaa lasoo maray waxaan rajaynaynaa waxay tahay in maanta ay meel fiican la joogo horeen loo socdo marka hambaliyaan leenahay arrinta ayada runtii walaasha dowladda federaalka waxaan islahay dadaal badan bay gelisay ra'iisul wasaaruhu muddo joogay meeshuu tegay wasiirka arrimaha gudaha wax kasta oo shaqo qaranka lahaa uu joojiyay wuxuu xoogga saaro dhex fariistay Galmudug oo Samareed inta badan haddii la dhiso la doog yahayna wixii oo ama xeeb oo horeyda soo u wareejiyay xilkii iyo odayaasha cadaado oo runtii wax tabaraya iyo kuwa kale ah dad kasta oo wax tabaraysa waa inay dowladdu xaliso waa inay xalin doontaa soo rajeynayo laakiin muhiimaddu waxay tahay in baarlamaanka oo inta badan la isla ogol yahay majority in la haysto mar haddii taa la haysto oo wixii ugu muskila laga soo gudbayna waxyaabaha yaryarka way dhammaan doonaan. dhinaca kale Cabdiraxmaan Daqare oo sii hadlayay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in shacabka deegaanada maamulka Galmudug ay garab istaagaan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay taageeraan murashaxa ay dowladda federaalka Soomaaliya wado isla markaana la doonayo in uu majaraha u qabto maamulka Galmudug. waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya Galmudug ay ku bixisay waqti badan isla markaana haatan la joogo waqtigii la soo gabagabeyn lahaa dhismaha maamulka Galmudug si taay u fududaatana waxa uu sheegay in shacabka Galmudug looga baahan yahay in ay taageeraan dowladda federaalka Soomaaliya hanaanka ay u dhisayso maamulka Galmudug iyo sidoo kale murashaxa ay wadato. anigu wixii wasiirsan riisaqiye uu ku dadaalayo ama ra'iisul wasaaruhu ku dadaalayo yaa ila tuman sababtoo waxay tahay maadaama aan doorasho xor qof iyo cod gaari weynay haddana qoladan hadda Villa Soomaaliya ayagu hadda waddanka gacanta ku haya maadaama ay waddanka dowlad ka yihiin wuxuuna ay xulashataa doorasho ahayn ayagaas wixii ay soo abaabulaan in la taageeraan aanu qabaa si aan doorasho xor iyo xalaal u gaarno ama ha taageeraan ayagu marka ha wataan qoorqoor ama ha wataan muxuu ahay odawa ama ha wataan Kamal ama ha wataan Cabdikariim cid allaala cidii qoladan xamar ee xoog badan ilaahay baa xoog leh ee hadda dowladda ka xamar cidda ay sababada ka riixayaan ayaan qabaa waxaan qabaa inay maamul ka dhisaan muxuu ahay Galmudug inay maamul ka dhisaan Jubbaland inay maamul iyo maqaam ka sameeyaan xamar inay cagaha u dhigaan nidaamkaas anigu waa taageersanahay oo koonfurtaan laga soo bilaabo Galmudug Hirshabelle Banaadir koonfur galbeed ilaa Jubbaland in weji degan oo siyaasadeed laga sameeyo oo aan dowladda caadi noqono maamulo caadi si aan waqooyi u raadino Soomaaliland ku jiraan anu saasaan qabaa dadka
si kastaba haatee hadalkan kasoo baxay cabdiraxmaan daqare oo kamid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa imaanaya iyadoo muddo ku siman 2 sano dowladda federaalk soomaaliya ay ka shaqeynayso sidii loo dhisi lahaa maamulka galmudug oo haatan maraya heer gabagaba dhawaana waxaa lasoo saaray xildhibaanada cusub ee kamid noqon doona baarlamaanka maamulka galmudug waxaana la filayaa maalmaha soo aadan in la guda galo doorashada madaxtinimo iyo ku-xigeenada iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka deegaanada maamulka galmudug. aad baad u mahadsan tahay cabdicasiis siciid beereeda. maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa shaacisay sababta weli aan loo fulin la'yahay kiiska Caaisha Elias oo soo maray marxalado kala duwan. si hayaha xilka gudoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta keentay in kiiska Caaisha Elias weli aan la fulin kaasoo ay ka dambeeyeen 3 eedeysano oo lagu magacaabo Cabdifataax Cabdishakuur iyo Cabdisalaan. gudoomiyaha si hayaha xilka gudoomiyaha Nuura ayaa ka warbixiyay marxaladaha uu soo maray kiiskaasi sababta keentay inaan la fulin kiiskaasi. kiiskan wuxuu soo maray heerar kala duwan ee maxkamadaha Puntland sida ogtahaba 12 bishii May 2019 sanadkan soo dhaafnay maxkamadda darajada koowaad baa xog go'aan ka gaartay 30 bishii June 2019 xukunkaas waxa ay yeeday maxkamadda racfaanka 25 bishii August isla sanadka 2019 maxkamadda sare ku raacday inta kadib waxa jirtay dib u eegid ay u soo qaateen dhinaca eedeysanayaasha xukumayaashu maxkamadda sare ay cabasho ka qabeen go'aankii maxkamadda sare ka soo baxay taariikhda hadda aan ku sheegay maxkamadda sare waxay laashay go'aankii dib u eegista xukunkaasna wuxuu yaalaa maxkamadda sare isagoo sugaya fulin xukun gaaray fulin wax hortaagan ama la dhihi karo waxba hortaagan ma jiraan maxkamadda sare inta ka khusaysa waxa weeye warqad wayna soo gaartay xafiiska xeeraarinta ka soo baxday walow hadda aanan taariikhdeeda ku sheegi karin xafiiska ayna joogin waqti shaqana aan ahayn ana xafiiska aan ku sugnayn warqadaas marka in la fuliyo kiiska Caaisha ma dhameystireen warqad dhameystiran ma ahayn codsiga xeeraarinta waxaa la rabaa inay la socoto warqadii dhaxal koobka sidoo kale waxaa la rabaa inay la socoto warqadii ogolaanshaha qisaasta oo dadkan dhiigan lahaa inay qisaas ku qanceen ay maxkamadda ka dalbanayaan in loo fuliyo iyadoo la soo marinayo procedure-ka sida uu sheegayo maxkamadda darajada koowaad ka xafiis ahaan anaga nama soo gaarin warqadda fulinta iyo warqadda dalabka qisaasta intaas maxkamadduna waxay sugaysay warqadahaas oo dhameystiran inay soo gaaraan. hadalkaasi hayaha xilka gudoomiyaha Nuur Ciise Maxamed ayaa ku soo aadaya xilli maxkamadda sare ee maamulka Puntland ama deegaanada Puntland uu ka jiray kiiska Caaisha Elias kiiskaas oo soo maray marxalado kala duwan waxaana maxkamaddu ay sheegtay in go'aan laga gaari doono lana xukumi doono raggii ka dambeeyay kufsigaasi. madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa taliyaasha ciidamada ugu baaqay inay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhiirigelinayay taliyaasha ciidamada Jubbaland ayaa guud ahaan taliyaasha Soomaaliyeed ugu baaqay inay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab isla mar ahaantaana ay guryaha ka baxaan. waxa uu sheegay in taliyaasha Soomaaliyeed ama ciidamada xoogga dalka looga baahan yahay inay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab isla mar ahaantaana cidna aysan u maqnayn cidna aysan u qodnayn shacabka Soomaaliyeed. waxaad ogaataan cidna uma maqna ceelna uma dadka la sugaya waa dadkiinaan maanta maalin walba dhibaatada xamar ka dhacaysa waxay u baahan tahay in bannaanka laga soo dhameeyo oo loo isugu yimaado gudaha iyo magaalooyinka dhibka laga geysanayo. waxaan boorinayaa ciidamada Soomaaliyeed mas-uuliyiintooda taliyaasha ciidamadu waxay ka shaqeeyaan inay noqoto inay guryaha ka baxaan naftacaylka la iska daa oo la socdo oo la baxo oo la shaqeeyo oo la raadsado oo loogu tago. maalin walba dhiig baa daadanaya maalin walba carruur baa agoontoomaysa maalin walba gabdhaha asay xidhanaya maalin walba kuwaa naafo noqonaya maalin walba iskuulaha la xidhaya oo baaba'aya intaasoo dhan baa dhibaato cod maanta uu ku xidhan yahay masiirka Soomaaliya iyo in xal laga gaadho iyo in dadkaas laga qabtaay waa idinkan ciidankaa wey waa ciidanka waxaa la rabaa maanta mustaqbalka Soomaaliya inay saxaan oo ay badbaadiyaan dadkooda ila tahay waan sii labalaabaynaa howlgalka
waxaan isku daynaa inaan idiin dhammaystiro waxyaalaha howlgalkiinaas caawinaya haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabnaa in aan la isdhiganin oo maanta markaad guul soo hoyso berri aad keento aadan odhanin alleelahay sidaasaan ahay ood sii labalaabtood sii wado hadalka madaxweynaha dib loo doortay ee Jubbaland ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii la soo dhaafay ciidamada ammaanka ee Jubbaland ay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. halka wararkaasi subaxnimo aad kala socotaan waa idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho. imikana wararkii dibadda. dowladda Iiraan ayaa shaaca ka qaaday in si aan ku talagal ahayn ay soo rideen militariga diyaarad dhawaan ku burburtay dalka Iiraan. dowladda Iiraan ayaa ku dhawaaqday in militariga ay si aan ku talagal ahayn u soo rideen diyaarad dhawaan ku burburtay meel u dhow magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iiraan. diyaaraddaasi oo ay ku geeriyoodeen dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa diyaaraddaasi oo gaarayay 176 xubnood. qoraal kooban oo ka soo baxay dowladda Iiraan ayay ku sheegtay qalad bini'aadanimo shilkii ay ku burburtay diyaarad laga lahaa waddanka Ukraine. TV-ga ku hadla afka dowladda Iiraan ayaa shaaca ka qaaday in diyaaraddu ay aad ugu dhoweed xarumo militari oo ay lahaayeen militariga Iiraan, isla mar ahaantaana militariga ay ka shakiyeen diyaaradda, taana ay keentay in diyaaraddu ay soo rideen militariga Iiraan. dowladda Iiraan ayaa maalmihii u dambeeyay beenisay in ay soo riday diyaaradda laga lahaa dalka Ukraine. hase yeeshee sirdoonka wadamada Canada iyo Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Iiraan ay soo riday diyaaradda laga lahaa waddanka Ukraine. diyaaraddan ay dowladda Iiraan soo riday waxaa ku geeriyooday 82 ka mid ah muwaadiniinta u dhashay waddanka Iiraan, 57 xubnood oo u dhashay dalka Canada iyo sidoo kale 11 xubnood oo ahaa shaqaalaha diyaaradda, kuwaasi oo u dhashay dalka Ukraine oo laga lahaa diyaaradda ay soo rideen militariga Iiraan. guud ahaan warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho inta ayuu ku dhan yahay.